السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تقالب صدق وشان كأن السوداء من خشيال هذا نقد عوان سويان أفتد لها الصنة ومسكين تياد ويان وصود وي صود ولا مركز مقال كل عصبيان عاو حان يدين وضع أو يدين وضع سومال هرا لو يري وصوصن تهركها كبر قولي جدي شرحان نفسه هجاج سنة الساعة كيلين قراي سنة الساعة فوحال اللي هاي maxaa waxaan kugu wacan waa qaaliye bal maxaa lacagteeda in ka khuseeyo iyo hawshadeeda lacagteeda waa xoogeeda maalata muruqeeda ayay maalatay adigu maalmalatay muruqaaga intaad leedahay waa qaaliye maxaa guriga noocaas ku wata waa qaaliye maxaa guriga inta lacagta aad ku yaashay lacagta madinka siiyay lacagta maydinka siiyay waa ma jawaabtu asxaabta qaaliga intaasna canaan yar hayga ahaatee waan la yaabaa dadku horta waa faduul soconaysa weeyaan hadda afkaagii ay adkaankiina aad ka magan gelisid yagiiba ku deynay walaalayaalo hadda gabadha islaameed gurigeeda maamulanaysa ee sharaxanaysa ee hagaajsanaysa ee kala wada ee kareysatay ee lacagta waliba in laga naasilay lacag boqol dheeraad baa hoos laga dhigay markaas ku leeyihiin waa lacagtu waa fara badan tahay maxaa lacagta u ciyaaraysaa adi maxaa ciyaarteeda ka galay maada ka bixiyay lacagta maadaas siiyo shaqeeyay lacagteeda shaqeysata xoogeeda ayay maalatay inta adigu halka fadhiday waa sidii maamuliyune intaad farkudirka aad fadhiday bayada xoogsato xamaalad maaho waxaan leeyahay Soomaaliya qofka hadaydan bilis qofka hadaydan dhiiri gelinayn oo wadayn oo aydan garabkiisa aydan ahaanayn ayda ka daaya war cala joojiya war caladu ma fiicina waxaas waa xaasnimo aan u arkaa waa Soomaaliya hadaysan xaasidnimo aysan jirin hormar balaaran bay gaadhi lahayd mid wali balaaran bay gaadhi lahayd oo weyn oo muuqda oo buuxa bay gaadhi lahaayeen laakiin maxay gaadhaan bay iyaga walaalkood boqonta daba haysta iyaga walaalkood boqonta daba jaraya waxay taraan daaya markay ficil la yimaadaan inay si dheeri galiyaan daaya xascaal waxas maxay tahay waa baloo iyo sayaaba bal muuqaalkan bay la daawadaba magacaas dhigataan nin tahay haddaan naagtana waxaan dhihi lahaa sistrey macnaha ma hadda kooraan xabadkaaga kaaga yaacay bal ii soo wada waxa dhihi sistrey xabadkaagii marra miyaan kaaga yaaca marka waxa weeye waa ninlamood weeyaan adduunka waxa ku daran ninlamood baa ku daran ninlamood baa adduunka ku daran nin waa kiraga ee gabadh oo hagaajiya oo wanaajiya oo ficilkee la timaado hadduu saxan yahay ku dhiirigeliya hadduu khaldan yahay gabadhnimadeeda iyo sharafteeda uu meel uu ka dhacayna uu leeyahay walaali macaane ka joog laakiin ka wataga intii TikTok waxaan ku arkay comment ku dhiglayaal marka ninkaas ama gabadhaas waxaan leeyahay waa comment ku dhigli weeyaan waxaana ka xun yihiin qofkaas gabadha walaasheena ee gabadha yar haysata ee ninkeeda haysata ee gurigeeda wadata bay ka xun yihiin horumarkeedaas ay ku qaracsan tahay ee nolosheedaas waayo haddaan ka xumaan de sidaa maysan dhaheen maysan soo fadhiisateen qaali oo maysan dhahdeen oo hadda muuqaalku waa fara badan yahay laakiin anigu waxaan jeclaystaa intaa yar kaliya aan ka soo dhaho waayo de waa la wadaa muuqaalka mucusba marka qaali axmed waxaan leeyahay qofku media horta soo galo ama sideedaba qofku hadduu ganacsato yahay hadduu yahay ama darawal yahay ama hadduu ay shay qofku hadduu shaqaale uun yahay oo shaqasanayo waa inuu dulqaad sameeyaa waa inuu arkaa oo dhaafaa anigayga kula hadlaya ama idla hadlaya ayaa qoraallo noocaas la soo qoray cay ah bal waa soo dirta media ku cusub yaa badana commentiyo xunxun baa la soo qora kadibna waan arkay waan dhaafay maxaa ma dhahaaba qofka gacan miyaan la gaadhayaa afna wuxuu sheegi maayaa hadda maanta dhahda muqaa soo dubaa halka kana nacleeyo
wax macnaa samayn mayso marka waa inaa isaga ilaahay aad u daysaa qof ilaahay hay lagu reebayna qof ilaahay lagu reebayna waa bas weeyaan wuxuu kaa qaadayaa iska yarsaa waa rabbi subxaana wa tacaala baa lagu reebaya ilaahay baan kugu reebay kii soo caayo haddaba waa maqlaysaa awliyaan iska ka ilaaliya asxaabteeda qaaliga ah muuqaalkaygii intaasaan kusoo gabagabaynayaa wallahi waxaan ka xumaaday gabadha qaali axmed sidaa loo galay gabadh gurigeedii marna waxay leeyihiin noo soo duub protein iyo marna iyagaa dalbanaya waa laga yaalo biniaadanku laakiin biniaadanku ma wada xumaa waxaas qaar xun baa ku jira haddaba intaa committee soo qorasay mudhiya labaa ka xumaa kowdhe inta kale waa bogaadinayeen maasha allah bay lahaayeen marka qaali waxaan leeyahay qaali magac qaaliyaad wadataa qaali axmedey waxaan ku leeyahay walaali macaaney commentiga wixii xun iska arago iska dhaaf wixiisana mahadcelinteeda leedahay wixii xunna waxaa dhahday ilaahay baan idinku reebay dheh maxaabaa hadalkeena iyo dood maanta matala intaan muuqaal soo dubaanaya qofka saasuu yahay kan dawaayo cay faa'iido ma lahan cay waa cay wax faa'iidana ma lahan qofkana garimas wuxuu yahay marka waxaan ku leeyahay aragoo dhaafeeye noloshaada wado noloshaada qof binaadan ayaanu hor istaagin noloshaada yaanan waxba yaysan kaa hor istaagin waxba yaanan ka hor istaagin noloshaada wado cay ha joojin ammaanta waa mudan tahay ammaan marka ha joojin baa ku leeyahay ha joojin waa dhaaf aragoo dhaaf baan ku leeyahay aad iyo aad baan idin salaamaya asxaabteeda qaaliga aad iyo aad baan idin salaamayaa muuqaalkan mid kale ka xisaab badan intayn ku kulmanno waxaan idin leeyahay waa walaashiin oo idin leh muuqaalka subscribe gareeya like-tana ku dadaala weliba daawashadana ku dadaala laakiin intaa kan jaalka miyaa garamaayana waa mid cusub dhaafa kan miyaa garamayana waa mid cusub dhaafa laa hadhina taas qofka media ku cusub waa inaad soo korisaan korisaan waa inaad dhahdaan heblaayo miyaa hebel miyaa maasha allah intaa yar bu haystaa hadda soo galay korodee loo qaado laakiin wax cusub yahayna dhaafi kuwa caankara war kuwan caanbaxo maasha allah weeyaan laakiin kuwan kale inaad kor usoo qaadaan sida biniaadankan kale Soomaaliya kale maahan sida biniaadankan kale dadkooda kor ugu soo qaadaan idinkuna kor soo qaada aad ayaan sameeyaa hadalkii baan ku dheereeyay karaale ahaa bye